Koorsadan waxay u noqon doontaa qofka doonaya inuu sameeyo cilmi baaris cusub. Waxaa ka faa'iideysan kara qof kasta. Barashada sida loo sameeyo cilmi baaris waxaa u baahan qof waliba laga bilaabo ardayda dhigata heerka koowaad ee jaamacadda, shaqaalaha hay'adaha caalamiga iyo kuwa localka ee sameeyo cilmi baaris, iyo shaqaalaha xafiisyada dowliga. Waxaad ku baran doontaa koorsadan sida loo adeegsado toolska kala duwan ee cilmi baarista, kuwa lagu soo aruuriyo xogta cilmi baarista data collection, kuwa lagu falanqeeyo xogta data analysis, sida topic cilmi baaris loo doorto, goobaha laga baaro, sida loo qoro proposal loona soo bandhigo natiijada cilmi baarista. Maxaa koorsigan ka dhigay mid gaar ah? Kow, waxaa lagu barayaa si tilaabaha qaabka loo sameeyo cilmi baaris iyadoo practical ah loona qoro buugga difaacashada. Labo, waxaa ku baran doontaa koorsadan xirfadda data collection iyo data analysis oo ah waxa ugu muhiimsan cilmi baarista. Saddex, waxaa lagu sharxi doonaa qaabka looga hortago plagiarism loona ilaaliyo sumcadaada cilmi baariseed. Waxaa faham fudud lagaa siin doonaa hababka cilmi baarista qualitative, quantitative iyo mixed methods, goorta mid kasta la adeegsado. Shan, waxaa si practical ah lagu tusin doonaa sida loo qoro research proposal iyo research report loona soo bandhigo natiijada cilmi baarista marka la dhammeeyo. Chapterskay ka kooban tahay koorsadu qofku qaadan doono. Chapter koowaad waxaa lagu bari doonaa si guud introduction waa cilmi baarista. Chapterka labaad waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo research area iyo research topic. Research area waxaa waaye meesha laga sameeyo cilmi baarista, topicna waxaa waaye ciwaanka cilmi baarista. Chapter saddexaad waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo research process iyo research design. Naqshada kala duwan ayaa jiro cilmi baarista sida descriptive iyo experimental. Processna waxaa waaye hanaanka cilmi baarista markii ciwaan la helo ilaa proposalka lagu soo bandhigo, tilaabooyinka la raaco oo dhan. Chapterka afraad waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo research problem iyo research methods. Research problem waxaa waaye dhibaato cilmi baarista. Cilmi baaris lama samayn karo iyadoo aan dhibaato jirin. Methodska waxaa waaye habka la isticmaalo qualitative ma isticmaashay mise quantitative. Cutubka shanaad waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo data collection iyo data analysis, sida xogta loo soo aruuriyo iyo sida loo falanqeeyo. Cutubka lixaadna waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo population iyo sample population waxaa waaye dadka guud ee cilmi baarista ka qayb qaata, samplena waxaa waaye tirada adiga aad ka xulatay. Cutubka toddobaadna waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo proposal iyo research report. Research proposal waxaa waaye marka la rabo in cilmi baaris la sameeyo oo fani loo aruurinayo waxa la soo bandhigo. Reportna waxaa waaye si guud marka cilmi baaristaada aad samaysid aad soo bandhigi doontaa. Chapterka sideedaadna waxaa lagu bari doonaa waxa la yiraahdo research chapters, inta dhammaan uu ka kooban yahay buugga cilmi baarista la qoro haddii noqoto thesis ama cilmi baaris si guud iyo waxa lagu qoro chapter walbo. Kadib marka intaan aan soo qaadano waxaan kusoo gunaanidi doonaa practice anagoo ciwaan cilmi baaris dooran doono, samayn doono data collection iyo data analysis, xog soo aruurin doono, falanqeyn doono, sidoo kale reference waxaasoo dhan step by step u samayn doonaa. Proposalkii waa samayn doonaa asagna iyo research report intaba. Yaa loogu talagalay koorsadan oo baran kara marka ardayda jaamacadda ay ku jiro sanadkooda ugu dambeeyay ee diyaarinaya buugga difaacashada ay ka faa'iideysan karaan. Lambar laba, qof kastoo danaynaya xirfadda cilmi baarista si uu ugu isticmaalo shaqo ama ganacsi u gaar ah wuu baran karaa. Saddex, shaqaalaha NGOska dadka la shaqeeya hay'adaha caalamiga haddii ay noqdaan kuwa internationalka ama localka way baran karaan. Afar, shaqaalaha dowliga dadka ka shaqeeya xafiisyada dowliga sida wasaaradda qorsheynta iyagana way ka faa'iideysan karaan koorsada. Faa'iidooyinka uu heli doono qofka baranaya marka koorsadan wuxuu heli doonaa marka koowaad dhammaan toolska loo adeegsado cilmi baarista oo hal fayl loogu diyaariyey sida data collection tools, data analysis tools iyo kuwa lagu baaro xogta cilmi baarista research tools. Lambar laba, waxaa la siin doonaa samples diyaarsan oo ka kooban 5 chapter ee buugga cilmi baarista kuwaasoo si fudud uu ciwaankiisa ugu bedelan karo. Saddex, waxaa lagu hagi doonaa dhabo fudud uu raaci karo si uu u qoro buuggiisa cilmi baarista. Afar, wuxuu si bilaash ah ku heli doonaa topics diyaarsan uu ku tababaran karo markuu koorsadan qaato. Kusoo dhawaada marka koorsada cilmi baarista research methodology ka faa'iideyso wacan.